Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaxiibada qiimiga badan oo meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkan maanta aan idin haya ayaa ah sida aad Facebook uga bedeli karto passwordkaaga weliba adigoo isticmaalaya taleefanka iPhone-ka ah. Inaan idiin soo gudbiyo sida aad Facebook uga bedeli karto passwordkaaga ayaa igu dhashay kadib markaan arkay waayaan dambe ay soo bateen in dadka dhalinyarada ah oo aan garanayn arrintaasi laga jabsanayo Facebook-yadooda weliba iyadoo loo adeegsanayo hab casri ah oo application loo soo saaray lagu leeyahay ogow qabiilka aad tahay, ogow qofka aad jeceshahay iyo halkay ku ciidee. barnaamijkaas oo haddii aad ku dhufato qofka uu ogaanayo xogta Facebook-gaaga oo dhan iyo passwordkaaga uu hayo, laakiin isla markii haddii aad bedelato passwordka Facebook-gaaga uusan waxba ka qaadin. Marka aan ku baro sida aad Facebook uga bedeli karto passwordkaaga, ila soco. bismillaah. Facebook ayaad ku dhufanay, waxaad taabanay geeskan 4 xabo meesha ku qoran midda geeska ugu xigta oo ku dhufanay waa setting la yiraahdo. waxaa ku soo dhufanay settingka, waxaa ugu dhufanay account setting meesha ku qoran tahay. waxaan filayaa inaad ila socoto. waxaad ku dhufanay security ay ku qoran tahay change your password and take other action ku dhufo. waxaad ku dhufanay security unlocking midaan security unlocking ayaad ku dhufanay. waxaad ku dhufanay change password ayaad raadinay, waatana ku dhufo change password. meeshaan ugu koreydo waxaad gelinay passwordkaagii hore, kanna waxaad gelinay kan cusub oo aad ku bedeli rabto kii hore, kanna mar labaad ayaad ku celinay kabacdi save ayaa dhahay. sidaas waxaa ku bedelatay kuna badbaadsatay Facebook-gaaga, passwordkaagiina waad ka bedeshay. waa mahadsantahay. ila soco mar walba, soona booqo page-kan, siina faafi, asxaabta kale usii gudbi. wax walba ku saabsan taleefanka iPhone-kana waad i weydii kartaa qaybta commentiga adoo noogu reebaya. waa mahadsantahay daawashada fiidiyogan.